mar walba wixii jira inaan sheegnaan rabnaa caawa haye soomaalina waxay tiri dibi hardi badan ha madaxuu u dhinta haye mar walba sheekh shariif ka soo bilow haye xilligaa aan barofesoorkii isaga kala reebayn sheekh shariif baa jooga waar sheekh shariif way isfahmi waayeen iyagoo dagaalsan yaa doorashadii sheekh shariif lagu reebay waar xasan sheekh baa soo baxay xasan sheekh yaa soo baxay xasan sheekh iyo axmed madoobe oon dooranay way isku dhaceen waa garta waa kii dagaalkaad ogeyday dhiigga badan ku daatay ka dhacay waa sax waan heshiinay haddana haye waa tii xilligaasi kii nala dhexdhexaadiye etoobiya laisku kaana geeye labada sano ee kumeel gaadhkaa nala siiyey adigu hogaamiyaa tahay nala yidhi waa run waxaasoo dhan waan diidana waa run dad aada u jubaysan baan haye haye waan soo jiidhnay wixii oo dhan haye ilaahay iidankii aqoonsi fuuluu dowladda xasanna siisay waan wada shaqaynay si fiican annagoo iskugu fiican yaa doorashadii xasan la gaadhay haye waxaa soo baxay farmaajo haye nin hor luu noqday haye nin hor leh oo noqdo oo imaaday Haye. yuu noqday haye 4.5ka markii la yidhaahna beeshaanadii buu ka imaaday aha habeenna markuu joogay yay farmaa isku dheheen haddana farmaajo isku dhaceen haa haye markaana waxaan u arkaynay haddaan reer jubbalandna in farmaajo naga geldaran yahay haye waxaa mar walba abaabul noo ahaa Haye. markuu xasan aan dirinayn hawiyaan nagu soo duulaan dhahayn haye kelmaddii aan adeegsan halhayska noo ahay taasay ahay haye markii hadda farmaajo u imaadayna mareexaan iyo hawiyo iswataan nagu soo duulay haye halkaasna axmed garabay u ahayd mar walba garabay u ahayd aha halkaa kolkaan joogo yaa doorashadaanadii soo gashay haye dad baa nalagu soo abaabulay wiilashaanadii ah haye waxaa ka mid ah nin hadda wasiir u ah oo seeraar la yidhaah Haye. cabdi seeraad oo cabdinaasir hadda Seeraar. wasiirka waxbarashada ah wasiirka waxbarashada haye waxaa ka mid ah nin hadda xildhibaan oo caawa inuu magaalada joogaan u maleeyo waa oo xidig wey xidig wey haye kuwo kaloo fara badan haye yaa jiri haye waxaasoo dhan gacantaan u dhignay haye gacanta aa u dhigna haa haye waxaan ugu dhigaynay axmed baa ku habboon baan dhahayn haye lamaanaan raggaan axmedaa kaga habboon haa ayaad dhihi lamaanaan gabanayn haye dastuur baa noo qornaa haye dastuurku wuxuu qorahayay Haye. 2 teeram Ah. oo min 4 sano ah ninka in la dooran karo waa run dastuurkii labadii waqtiya uu siiyey axmed si fuul aan u siin waa run dheerina waaba noogu daran haye dheerina oo sanooyinaaba dheeri ahaaba labadii sane hogaamiyaha u haya sanadka hadda dawladdu ay ku dareysay Ha. marka hadda wadatashigu socdo Ha. madasha wadatashigu ay socdo waa run 3 sanoo dheeri ah ayaa loogu daray yaa loogu daray waa run aad iyo aad baan raalli ooga ahay haye dadka usha weyn u watay ee afhayeenka u ahaaye hortaagna yaan kow ka ahaa waa run yaan kow sax ka ahaa habeen waxaa jirtay aan rabo inaan bulshada jubbaland xusuusiyo haye berigii dowladda farmaajo ayna haysatay yani habeenada ka mida shirweynuu ku dhawaaqay aan annaguna raalli ka ahay haye dal iyo dibadba waan isaga nimi haye shirweynihii baa waxaa ka soo saaray guddi 62 ruux haye oy labadu gabdho yihiin haye 62 ruux habeenada ka mid habeen hebel buu ahaa ma dhihi kare yaa waxaan fadhiisan salaada madaxtooye haye odaygu intuu noo imaaday oo aad noo qiirogeli yuu aad isu xumeeyey haye waxaan ku nihi rag baan isaynaaye yaan la ii garab banaynin bu Haye. waxaan ku nihi orod haye dadkii aad u marqaansanaa baan ku jira Haye. orod adigu iska tag baan ku nihi annagii baa isku hadhnay Haye. meeshaan salaada makhrib ku tukan salaada subax baan ku tukan wakti dheer 12 intaasoo dhan saacadood baan ishaysan waxaan isla qaadanay oon qalinka ku duugnay inaan soo celino wiilasha kaleoo dhanna aan ka reebno waa run go-aan cad buu ahaa haye wuu nala ogolaaday wuxuu noo ballan qaaday asaguna Ha. inuusan dib dambe usoo istaagin hadda Aha, waktigii ha, oo socda aha, yuu duqii iska soo istaagay haye annagoo isku wixii hore waa iloobay miya mar walba wixii lagu heshiiyey duqaa ka baxay ha waa run asalna waaba wax uu yaqaanaba waxaa haye uu yaqaano waaye wey aha,
sideeda hadda meel fool xun bay taaganta haye ilaahay ha naga samata bixiyo wax kale ah oo shisheeye wataan ah yaa meesha nooga muuqda haye ninkii naftiisi ninkii aan naqaanin ma aha amaan Kenya joogno amaan joogno dowlad deegaanka amaan Jubbalandba joogno wax naga weyn baa duqa saarna haye wax naga weyn haye yaa saarna duqa yaa saarna haye waxaan xagga mar uu safar u yargaar haye iyo bariye ka horeysay wax ku soo rarmay haye yoo ahaa haye waxaan aad u aaminsanahay fikirkan kaanagi aan isku ogeynay uu odayga noogu ahaye madaxweynaha noogu ah ma ahayn ma ahayn ma ahayn waa yahay wuu soo bixi doonaa inaan ka hor dhacana ma rabo Hay. odayaal baan nahay isimaan leenahay waxaan leenahay siyaasiyiin qoys weyn oo ballaadhan oo meelo badan joogaan waa run waa la isla hadlaya haye waa run waa la isla hadlaya ninka odayga ah madaxweynaha inaga hore ahaa sharciyadii way ka dhammaatay haye kol hadday ka dhammaatay raalli ha ahaado dadkana sidiisa xoog laguma maamuli karo haye xoog lagu maamuli karo laguma maamuli karo haye maamaha Soomaaliya jirto la yiraahdo qooley qoorqabad biyo kuma cabto haye dadka in qabiilooyin iyo loo qabiil sheegtana waa laga fiican waa run waa laga fiican wiilal baan nahay ilma adeer waxaasoo dhan wax macno ay samaynayso bale malaha haye caqli shaqeeyaan rabna awal waxaa la dhihi jiray waxaa inugu soo duuli hawiye xilliga xasan sheekh iyo sheekh shariif waa garta xilliga ka dambeeyey farmaajo inugu soo duuli haye iyo beelahoodii haye iyo hawiye uu wato haye hadda yaa la dhihi haye dowladda hadda annaga madax ka aha ra-iisul wasaarihii baan Hay. madaxweynaha naftiisa saaxiibkaan anagu wadaneen keensannay buu ahaa waa run saaxiibkaan anagu wadan Hay. yuu ahaa Hay. dadkuna siyaasadana saaxiib bay ku yihin deriskana saaxiib bay ku yihin haye reerka ninkan uu ka dhashay hiraab la yidhaha meelo badan baan deriskan Hay. wada deganna waa run wax xumaanaana nagama dhaxayso waa sax waxa hadda la afka lala kala qaadi awiyaa soo duula awiyaa kana waxyaabahaas oo dhan Wa- khuraafaad waa run alla ma urusha hadda xalku muxuu yahay hadda halka keliya ee taagan hadda hal mida waa haye axmed intuu baaqa annaga maqlo inuu aayar nabad meeshaa iska soo dhaafo oo iska tago aayar ilmihiisa aha hadday nairobi joogaan iyo hadday meel kale joogaanba inuu sidaa yeelo oo wixii sharciyaddu u ogolayd waan siin aha waan kula shaqayn haye abaal baan oogu gal isagana abaal buu noo galo intuu joogay waa noo shaqeeyey haddii ay taasu dhici weyso axmedna iska joogo halka kale muxuu noqon karaa halka kale dowladda gacanteeday ku jirtaa haye inay dowladda federaalka Aha. gacanteeday ku jirtaa